shan coin oo cryptocurrency ah oo mustaqbal leh 2026 lana filayo inay faa'iido fiican iyo dhaqaaq fiican inay sameeyaan. Ugu horreyn waxaanu ka hadlaynaa waa maxay cryptocurrency. Cryptocurrency horta waa maxay? Dad badan baan fahansanayn waxa ay tahay cryptocurrency. Cryptocurrency waa lacag digital oo internetka ku shaqeysa. Bangi iyo dawlad midna ma xakameeyo. Waxbaa lagu diri karaa, waxbaa lagu iibsan karaa. Sidoo kale online-ka ayaa lagu sameeyaa macaamilka online-ka ka dhacaya sida lacag bixinta ayaa loo isticmaalaa. Maanta waxaynu soo qaadanaynaa 5 coin oo ku fadhiya mashaariic waaweyn oo la filayo inay sameeyaan dhaqaaq fiican. Ugu horreyn walaal YouTube-ka waxaan kaga hadalnaa horumarinta ganacsiga iyo sida online business loo bilaabo iyo horumarinta shakhsiyadda. Haddii aad jeceshahay mowduucyada fadlan muuqaalka like noo saar, sidoo kale subscribe saar si aad u hesho muuqaalo badan oo runtii aad ku anfacaya. shanta coin ay soo qaadan doono maanta waxaa ka mid ah coinka koowaad waxa weeye waa Bitcoin. Waa lacagta ugu caansan. Bitcoin waa lacagtii lagu aasaasay cryptocurrency. Waxa la yiraahdaa waa hooyada iyo aabaha cryptocurrency ayaa la yiraahdaa. Si fudud haddii aan ku fahansiiyo Bitcoin waxa ay tahay waa dahab online weeye. Dahabkii oo online laga dhigay weeye Bitcoin. Bitcoin waxyaabaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah in lacagta lagu kaydsado, in lacag lagu diro, in maalgashi muddo dheer lagu sameeyo. Oo dadku way maalgashadaan si marka ay kor ugu kacdo ay lacagtooda markay faa'iido ay sameysay ay lacagta ula baxaan. Tusaale maanta Bitcoin waxay maraysaa ku dhawaad 90,000 oo dollar bay maraysaa. Marba waxay soo maraysay 0.1 mar bay maraysay. Dhawaan 2025 mar bay waxay maraysay 40,000 30,000 mar bay maraysay. Maanta meesha ay maraysana waa dareemi kartaa. Marka qofka hadduu maal gashado maalinta ay meel fiican gaarto ayuu lacagtiisa kala baxaa. Dabcan halkaasina faa'iido fiican buu ka heli karaa. Marka waxa loo isticmaalaa maalgashi muddo dheer ah. Waa maxay sababaha ay mustaqbal u leedahay 2026 lacagta la yiraahdo Bitcoin? Horta dad badan ayaa isticmaala Bitcoin, dadku aad baa loo isticmaalaa oo dad badan ayaa lacag gashaday. Sidoo kale waa mid xadidan oo lacagtan la yiraahdo Bitcoin macnaha coin aad u fara badan ma gabigiisu wuxuu ka kooban yahay 22 milyan oo boqolkiiba 95 la soo saaray in ku dhawaad ah suuqa ay taalo. macnaheedu waxa weeye waa coin aad u kooban, dadka iibsaday, dawladaha, bangiyada, hay'adaha, dadka maal gashaday iyo runtii coinka inta coinku uu yahay aad bay u kala badan yihiin. Taasaa keenaysa marka coinku inuu mustaqbal fiican yeesho oo dhaqaaq sameeyo. More wuxuu ay yar yihiin waa more uu qiimo yeesho. Sababta maanta Bitcoin 9,000 u maraysa waxa weeye tirada laga soo saaray oo aad u yar ayaa keenaysa in qiimaheedu kor u kaco. waa tan ugu kalsoonida badan mashruuca ugu weyn weeye oo lagu kalsoonida badan yahay weeye. Taas ay keenaysa marka qofku si kasta uu coin-kan ama hoos ugu soo dhaco in la filayo meeshii uu ka yimid meel ka sarreysa inuu gaari karo dhaqaale fiicanna runtii laga sameyn karo qofka haddii uu muddo waqti uu maal gashado. Marka coin-ka koowaad aan soo qaadanayna marka waa Bitcoin. Dabcan qiimihiisu waa qaali laakiin waxa la yiraahdo Satoshi qiimo yar baad iibsan kartaa, jajab baad iibsan kartaa. $100 haddaad gashato oo aad bil walba cotton geliso, soddon geliso, lacag bay noqonaysaa. hadhow average price baad wax ku iibsanaysaa. Waxa laga yaabaa maalin iyadoo 50,000 maraysa inaad iibsatay, maalin iyadoo 80,000, maalin iyadoo 100,000 celcelis baad ku helaysaa. hadhow dabcan qiimo fiican buu ku noqonayaa. Marka ha oran 9 qiimaheedu aad buu u sarreeyaa ma iibsan karo, laakiin jajab baad ka iibsan kartaa. Jajabkaasna dabcan qofka hal Bitcoin haysta intuu faa'iidayo in la eg baad faa'iidaysaa adiguna. coin-ka labaad aan soo qaadanayna waxa weeye Ethereum coin-ka la yiraahdo. waa lacag ku dhisan dabcan abiska ku dhisan weeye oo abab mashruucan wuxuu ka shaqeeyaa had iyo goor ababka ayaa lagu dhisaa. u fahan in Ethereum ay tahay sida Android-ka oo kale ay tahay ama iOS oo kale inay tahay ababkaas oo kale inay tahay. dabcan ababkaas ayaa ku shaqeeya oo abab badan oo kuwa finance ah iyo kuwa kale oo loo isticmaalo tiknoolajiyada ayaa runtii Ethereum aad loogu dhisaa maadaama uu yahay blockchain. waxaa loo isticmaalaa Ethereum in lagu dhiso ababka lacageed oo la yiraahdo DeFi, NFT in lagu sameeyo sawirro digital iyo waxyaabaha marka mashaariicda in lagu dhiso, horumarinta website-yada in website-yada lagu dhiso lagu horumariyo ayaa loo isticmaalaa. maxay mustaqbal u leedahay? sababaha ay mustaqbal u leedahay ee khubaradu ay daliishanayaan waxaa ka mid ah ababka lagu dhisay runtii oo aad u fara badan, tiknoolajiyadu aad isu xoogaysanaysa, qiimaheeda kor bay u sii qaadaysaa. ganacsiyo waaweyn ayaa isticmaala runtii Ethereum oo aad u isticmaala, taasina waxay sii xoojinaysaa positive-ka in ay si togan qiimahooda u kordhi karo. coin-ka saddexaad aan soo qaadanayna waxa weeye coin-ka la yiraahdo Binance coin ama BNB loo yaqaano. waa lacagta suuqa Binance loo isticmaalo, waxaana iskale shirkadda Binance waa iskale. Binance waa exchange-ga ugu weyn dunida ee cryptocurrency ka shaqeeya. dabcan wuxuuna sameeyay coin-ka la yiraahdo BNB
waxaan ugu talagalay in lagu bixiyo kharashaadka in lagu bixiyo trading lagu sameeyo طبعا Binance gudihiisa marka wax iibsanayso ama wax iibinayso dee waxa qiimo uu ka goosanayo khidmadda wax lagu bixiyaa BNB ama Binance coin u fahan in BNB ay tahay sida kaar tukaan oo kale oo wax lagu iibsanayo oo qiimo dhimis iska leh inuu yahay waxaa loo isticmaalaa coinkan in lagu dhimo kharashaadka iibka crypto in lagu dhimo loo isticmaalaa in wax lagu bixiyo oo lagu bixiyo adeegyada Binance ayaa loo isticmaalaa in lagu iibsado mashaariic kale ama mashruucyo kale sida coins kale in lagu iibsado sida coinska XRP Dogecoin Cardano coin kala duwan in qofku uu ku iibsan karo ayaa loo isticmaalaa maxay mustaqbal u leedahay maxaa loo daliishanayaa in ay BNB mustaqbal fiican ay leedahay 2026 Binance waa suuqa ugu weyn taasoo keenaysa maadaama Binance uu yahay suuqa ugu weyn lacagta dunida ugu badan ee crypto ku jirtaan isaga ay ku jirto runtii taasoo keenaysa marka in coinkan uu sarakac xoog leh uu sameeyo maadaama uu exchange ugu weynaa uu iska leeyahay taasina ay keenaysa kharashaadka iyo qiimaha iyo tradingka lagu sameeynaya in macno weyn ay u yeelayaan marka qiimihiisu halka uu gaarayo isticmaal badan buu leeyahay dad badan ayaa isticmaala labada qodob la isku weheliyay oo waxyaabaha la filayo in mustaqbal u yeelan coinkan coinka afraad aan soo qaadan doona wax weeye Solana waa lacag degdeg ah oo loo isticmaalo in wax lagu diro u fahan in Solana ay tahay sida internet xawaare sare leh dan ku raahday aad tiraahdo Solana ii sheeg macnaheeda si kooban Soomaali waxa lagu sheegi karaa wax weeye waa internet xawaare sare leh weeye waxa loo isticmaalaa lacag diris degdeg ah si degdeg in lacagaha loogu diro ayaa loo isticmaalaa daqiiqad second gudihiis ayaa lacagta adduunka meel walba ay tahay loo diri karaa waxa lagu dhisaa sidoo kale gameska iyo NFT ayaa lagu dhisaa abab casri ayaa sidoo kale iyadana lagu dhisaa oo lagu hormariyaa ababka kala duwan khidmadahoodana waa lagu bixiyaa waa maxay mustaqbalka ay leedahay la filayo horta waa degdeg oo qiimaha iyo adeeg ay bixinayso waa adeeg aad u tayo sareeya degdegiisuna waqtiga lacagtu ay ku baxaysana ay aad u yar tahay qiimihiisu aad buu u jaban yahay gas fee oo transactionkiisu aad buu u jaban yahay dad badan ayaa u wareegaya oo runtii aad u doonaya maadaama coinska Binance iyadoo ay wax la yiraahdo Bitcoin ay aad u sareyso altcoinska runtii la rajeenay inay hogaamiyaan bay Solana ka mid tahay inkastoo coins badan ay tartan kula jiraan coinka shanadan soo qaadan doono oo leenahay mustaqbal wanaagsan buu leeyahay 2026 markaan xogo badan aan soo baarnay waa Chainlink coinka la yiraahdo waxa la yiraahdaa isku xiraha xogta Chainlink hadii la yiraahdo si fudud oo u fahmi kartaa waxa weeye waa turjumaan waa mashruuc u shaqeeya waa mashruuc turjumaan u ah una dhaxeeya blockchain-ka iyo dunida digitalka ah dabcan dunidan dhabta ah iyo blockchain waxa isku xira oo xogta u kala qaada waa Chainlink waa mashruuc loo isticmaalo in uu u kala macnaha isku xiro waxa la yiraahdo dunidan dhabta ah iyo blockchain-ka inuu isku xiro maxaa loo isticmaalaa in smart contracts ay helaan xog sax ah dabcan markaan ka hadlayno blockchain-isku waxay ku shaqeeyaan smart contract bay ku shaqeeyaan heshiisyo iyagu si automatic isku filinayaan u baahnayn in cid ay xakamayso ama cid ay ka shaqeysiiso marka smart contract had iyo goor waxay u baahan yihiin xog inay helaan xogtaasna waxa keenay Chainlink waxa kale oo loo isticmaalaa in lagu ogaado qiimaha shayada lagu ogaado cimilada iyo waxyaabaha la mid ah waa maxay sababta ay mustaqbal u leedahay Chainlink ee la rajeynayo in qiimihiisu kor u kici karo 2026 crypto ma shaqeyn karta la'aantii Chainlink la'aantii sababtoo ah xogta ay ku shaqeynayaan blockchain-iska waxa keenay Chainlink marka crypto ma shaqeyn karto la'aantii Chainlink la'aantii runtii ma shaqeyn karaan waxa la yiraahdo blockchain-isku aad ayay muhiim u tahay aad bayna muhiim u tahay cryptocurrency lacagta la yiraahdo ama mashruuca la yiraahdo Chainlink walow ay jiraan mashaariic kale oo la tartamaysa gunaanadka waxaynu ku soo ururinaynaa haddii aad bilow tahay waxaad u fahantaa Bitcoin waxay ku fiican tahay in lacagaha lagu kaysado Ethereumna waxay ku fiican tahay in lagu dhiso ababka kala duwan in lagu dhiso BNB waxay ku fiican tahay exchange in lacagaha kale lagu bedesho iyo kharashaadka in lagu bixiyo Solana waxay ku fiican tahay xawaaraha degdega ah dhaqsiyaha loo baahan yahay marka la rabo in lacag la diro Chainlinkna waxay ku fiican tahay fahamka sida crypto ay u shaqeyso intaasina waa waxyaabaha aan oran karno gunaanadka si fudud waan u qabsan karnaa shanta mashruuc ee coinskaasi ay ku fadhiyaan runtii waana coin la filayo inay dhaqaaq fiican sameeyaan ugu dambeyn walaal waxaan ku xasuusinaynaa crypto khatar ayay leedahay ku bilow lacag yar lacagtaada iska wada gelin wax baro intaadan maal gashay marka hore maadaama ay khatarteedu aad u badan tahayna runtii do your own research samee cilmi baaris adigoo ku gaara this is the volatile aad ba qiimaheedu isku bedelaa
khasaari keeni kartaa marka had iyo goor ha ku degdegin marka aad maal gashanayso adiguna cilmi baaristaada gaarka ah samee do your own research halkaasaan ku joojinayna walaal haddii aad muuqaalkan wuxuun ka faa'iiday xiisaynayso waxyaabaha la xiriira marka cryptocurrency online businesska iyo horumarinta shakhsiyadda fadlan like hadaad noo saaray like tahay naga ilaawin aad ba mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weli ma maqashay ereyga crypto ama cryptocurrency dad badan way maqleen balse tiro yar ayaa fahmay waxa uu dhab ahaantii yahay crypto waa mustaqbalka lacagta waa halka lacagtu u socoto maanta kumanaan qof ayaa lacag ka sameeya cryptada qaar iyagoo ka ganacsada qaarna iyagoo maalgashi ku samaysta wax kasta waxay ka bilaabmaan aqoon yar iyo go'aan adag